السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كينا مالمها دونيدا oo si toos ah kaga imaanay studio-hanu ku leenahay magaalada London barnaamijkan oo aynu kaga hadlayno doorashooyinka guud ee dalka Faransiiska ka soconaya ayaa waxa si toos ah kala qayb qaadanaya studio-hana jooga magaalada Paris ee caasimadda wadanka Faransiiska Hussein Barrio oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda iyo amniga kuna nool wadanka Faransiiska qaasatan magaalada Paris isla markaana aynu ka wareysan doono haddii ay beedmo ama falanqayn ku saabsan barnaamijka aynu kala yeelan doono doorashada madaxweynenimo ee dalka Faransiiska oo doorashadaasina ay qaybtii koowaad wareegii koowaad uu maanta ka dhacay magaalada Paris iyo guud ahaanba wadanka Faransiiska Hussein ku soo dhawo barnaamijka maalmaha dunida marka koowaad waa mahadsantahay aad mahadsantahay maxamed Soomaalidan oo salaamaya waynu ka qaadnay aan daawadaasha xasuusiyo doorashada wadanka Faransiiska waxay fara badan oo ka ogaano waxa kamid ah in la qabto maalinta Axadda oo run ahaantiina oo noo sii sharaxi doona ninka la yiraahdo Hussein Barrio falanqeeyaha barnaamijkeena waxaana doorashadan ku tartamaya ilaa iyo 12 musharax oo u tartamaya inay noqdaan madaxweynaha wadankaas qaarkood wareegga koowaad ku hari doona wareegga labaad oo soo gudbi doona xageese siyaasad ahaan iyo fikradaha kala duwan iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadda wadankaas ay tahay aan u soo laabto walaalkay Hussein oo qadka si toos ugu jira Hussein doorashadan waxyaabo badan baa lagu xasuusan doonaa saameynta ballaaran ee siyaasadda wadankaas ha noqoto wareegii koowaad baa maanta dhacay sidee wax u dhaceen iyadoon ogahay inaan su'aalo badan oo arrintan la xiriirna wax kaa weydiin doono laakiin waxaan jeclaanahay inaan ku bilaabo bal inoo sharax maanta wixii dhacay oo ahayd 10 bisha Abriil wareegga koowaad ee doorashada wadanka Faransiiska maxamed waa mahadsan tahay maantay doorashada wadankan Faransiiska dhacay oo muddo soo socotay runtii saadaal badan oo laga bixinayna waxaa moodaa sidii loo sheegay inay noqotay dadka badanaa saadaaliya waxay lahaayeen waxaa soo bixi doona madaxweynaha hadirtaan wadankan oo ah musharax madaxweyne Macron asaga ayaana la filayay inuu noqdo qofka koowaad qofka labaad waxaa la saadaalinayay sidii dhacday 2017 oo kale Marine Le Pen oo ah qaybta cunsuriyiinta ka socota bidixda fog marka la fiiriyo waxaa soo baxay oo qaybta saddexaad soo galay nin la yiraahdo Jean-Luc Mélenchon oo ka socda dhinaca socialistaha ama socialistayaasha la yiraahdo communistic marka doorashada waxay socotay maanta bilaabatay waxaa ku tartamay ilaa 12 qofood xisbiya lagu tartamaa wadanka Faransiiska waxaan lagu tartamaa hal dheeri sida loo kala badiyo Macron wuxuu helay boqolkiiba 28 halka ay heshay Marine Le Pen 23 boqolkiiba saas ayaa waxay keenaysaa inay u gudbaan wareegga labaad labadooda wareegga saddexaad qaybta saddexaadna waxaa soo galay Jean-Luc Mélenchon oo helay 20 boqolkiiba sida la filayay doorashadan waxaa surprise ku ahaa ama ku ahaa lama filaan inuu soo dhex galo nin la yiraahdo Eric Zemmour oo ah nin aad cunsuri ah nacibna qaxootiga ololihii doorashadana kusoo galay inuu saari doono dad badan oo qaxootiga iyo dadka ajnabiga iyo dadka islaamka nacibkooda oo aad u zaa'idiyay laguna yaqaanay wuxuuna ahaa 30 sano ugu dambeysay wariye aad u xagliya dhinaca bidixda wariyahaasi ayaa noqday wariyihii surprise-ka ee doorashada ka qayb galay marka loo fiiriyo 12 qof ee doorashada ka qayb gashay waxay ahaayeen 10 qof oo kamida dad hore uga soo qayb galay doorashada wadankan ama madaxweyne galay marka loo fiiriyo naagta gabadha ama Marine Le Pen oo ahayd markeedii saddexaad aabaheed ayaa ka horeeyay oo cunsuri ahaa oo xisbigan haystay ay kala wareegtay asagana 2 mar ayuu galay 2002 wuxuu galay kaalinta labaad sida hadda ay u gashay oo waxa ku guuleystay Chirac oo madaxweyne ka noqday markaas wadankan 2002 marka la fiiriyo doorashadan saameynta ay lahayd iyo karkarka ay lahayd lama filaynin runtii ma lahayn karkar ma lahayn doorasho xamaasad leh mana jirin saaxa siyaasadeed oo aad u weyn oo dadka ay ka qayb galaan ama siyaasiyiinta ama doodo ama campaign aad u weyn oo wadanka gilgilay wuxuu iska ahaa wax loo ogolaaday in lisdhiibo oo kale ayadoo laga fiirinayay waxyaabo badan oo dabcan barnaamijka aan kaga hadli doono hadhow
waayahay waxaan u fahmay marka alada dhanka siyaasadaha lagu tiriyo dhanka midig weliba mayalka adag kooxaha mayalka adag ee siyaasadaha dhanka midig baan u niraanaa ingiriiska markaynu joogno oo siyaasadooda u moodid inay tahay kuwa xagga cunsurnimada u dhow siyaasadoodu ay tahay siyaasadan soo dhaweyna dadka soo galootiga siyaasadan ogolan isdhexgalka siyaasad ku dhagan dhaqanka dadka u dhasha waddanka siyaasadaad u moodid inay la jaan qaadayso qarniyadii hore marka loo fiiriyo sida lagu eedeeyo musharaxiinta u tartama siyaasadda dhanka midig oo ingiriiskan u naqaan right wing politics ama siyaasaddaas laakiin waxaan jeclahay inaan kala qaado qaybo kala gedisanba ololuhu ku saabsanaa 12 musharax baa musharaxneed wareeggii koowaad baa maanta dhacay laba ka mid musharaxiintii baa usoo gudbay wareegga labaad oo dhici doona 24 bishan laakiin waxaan rabaa inaan kala qaado arrimaha ugu waaweyn ee ololaha doorashada tusaale ahaan siyaasadda arrimaha gudaha iyo weliba tan amniga siyaasadda arrimaha dibadda waddanka faransiiska xaggii covid-19 iyo weliba dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine aan ku hormare dhinaca dhaqaalaha ama sar u kaca siyaasadda ku aadan sar u kaca dhaqaalaha iyo weliba maciishadii oo qaali noqotay dadkii oo batroolkii iyo shidaalkii qaali ku noqday musharaxiintu sidee bay arrintaas ugu cadcadaayeen haddaan ka bilowna xagga sar u kaca dhaqaalaha oo saameyn ballaaran ku leh dadka codeynaya oo ilaa 48 milyan oo qof ay ahaayeen dadka codeyn karay maxamedow qiyaasta marka laga qaato waxyaabaha koowaad ee dadka ay wax ku dooranayeen baahiyaha dadka electoraalka waxay ahaayeen maciishadda oo maciishada quuduldaruuriga dadka ayay saameynta ay ku leedahay sarakaca ayadoo la xasuusto labadii sane ugu dambeysay oo corona oo waddanka ka dhacay sanadkii kasii horreeyey oo madaxweynahani haystay oo mudaharaadyo ka dhaceen oo la qaaliyey maciishadii waddankan taasaa marka waxay ahayd wax aad iyo aad loo sugayay in lagu tartamo oo xamaasadda doorashadan ay noqoto mid quuduldaruuriga maciishada dalka aad u sarakacday darteed in la isku doorto laakiin ma dhicnin oo waxaa yimid surprise aad u weyn oo meeshii oo dhan ka saara maciishadii kaasoo ahaa dagaalka Ukraine ayaana keenay in la iska iloobo maciishadii iyo dhibaatadii ay lahayd laakiin waa mid taagan waana waxyaabaha ay dadka ku doorteen maciishada ayaa waxay tahay inay helaan stability-ga ama xasilooni siyaasadeed si loo helo xasilooni siyaasadeedna waxay doorteen dadka in ay sii wadaan madaxweynaha waddankan inuu sii hogaamiyo iyadoo la filayo dagaaladii dhacay saameyntoodii karoonihii saameyntii oo yeeshay si marka aysan qalqal u dhimaanin maciishada waddanka ayay waxay doorteen in ay continuity ay usii sameeyaan madaxweynaha waana runtii waxaa la inkiri karin marka la fiiriyo maciishada waddankan sidii qaali u noqotay ayadoo aad loo hadal hayo in dagaalka haddeertan Ukraine uu sii kicin doono maciishada waayahay waxaad la diiwaan ama isdiiwaan gelisay tira dad gaaraya ilaa 48 milyan oo ka mid ah 60 iyo dhowrka milyan ee ku nool gudaha waddanka faransiiska tirada ma wada codeeyeen wareeggii koowaad ee maanta dhacay inta la ogyahay 48 milyan mise qayb ka mid ah codeys waxaa xusid mudan in boqolkiiba 25 in ka badan maanta ay yihiin dadka aanan u soo bixin doorashada maanta faransiiska taasoo ah rikoorkii ugu badnaa 20 sano ee ugu dambeysay waxayna saamaxday in aysan ka qaybgelin dad badan oo doorashada isqoray 48 milyan waa dadkii isqoray inay doorashada ka qaybgalaan ama diiwaangelinta doorashada sameeyey marka la fiiriyo lambarkaas oo ahaa habeen hore 48 milyan waxaa ka maqnaa maanta doorashadii dad lagu qiyaasay ilaa 14 milyan oo aanan dhiibanin codkooda laakiin ogolaaday oo qaatay kaarka isdiiwaangelinta taasoo ka dhigan maxamed in dadka aanan rabinin inay codeeyaan ama xanaaq ama ku xumeyn ama campaignka oo aanan ahayn sidii la rabay ayagoo facilitate gareeyay oo ogolaaday in la sii wado madaxweynaha waxaana kaloo xusid mudan madax maxamed haddii absentationka dadka ka dhiman aanan imaanin doorashada waxaa fursad u jirta mar walba qofka madaxweynaha ah oo markaa doorashada ku jira ayaa fursadda helay mar walbo participationka uu bato dadka ka qaybgalaya doorashada ay bataana waxaa halis ku ah revolutionka in madaxweynaha meesha laga tuuro marka faa'iidada ayaa ugu jirta dhinacaas aan dhihi karnaa Macron in dadka absentationka uu sii bato asaga ayaana dhiirigeliyey maadaama uu sameeyey siyaasad qalqal ah uu ku yiri dadka haddii aan lay dooranin waxaa iga soo horjeeda Le Pen oo ay saaxiib la ah Putin Mélenchon oo saaxiib la ah Putin Zemmour oo saaxiib la ah Putin marka waxaad dareemaysaa saddexda qof ee kula tartami lahaa doorashada inay yihiin saddex qof oo saaxiib la ah Putin iyo dagaalkii geopolitigii oo ka dhaxeeyay Yurub oo ahaa in laga soo horjeeday anti Putin marka dagaalka waxaa doorashadani waxay doorasho anti Putin iyo
Putin dad la socda inay kala doortaan labada qofood waayahay marka si kale haddii loo eego waxaan u fahmay in aad leedahay haddii dagaalka Ukraine uusan dhici lahayn rajada madaxweyne Emmanuel Macron ee doorashadan waxay ahayd mid aad u liidata rajadiisa marka loo fiiriyo suuqa siyaasadeed ee Faransiiska marka la fiiriyo productiga siyaasadda ee laga iibinayo dadka shacabka Faransiiska waa continuity-ga 10 sano ugu dambeysay wixii lahaayay un baa la iibinaya marka la fiiriyo wixii lahaayay waxa kaliya ku cusub ee dadka rajo gelin karana wuxuu ahaa asaga mar walba fursad uu haystay laakiin waxay noqon lahayd in la kululeeyo waxay noqon lahayd in campaign uu dhaco waxay noqon lahayd in waxyaabo affair campaign la soo saaro oo ceebo la iska sheego sirar badan la soo bandhigo joornaalo wax lagu soo daabaco si campaignka xiiso u yeesho laakiin intaasba ma dhicin maxamed oo waxaa dhacday in campaign smooth uu ahaa oo wax dhibaato aysan jirinin wax la soo saaray oo dadka lagu qabsanayo madaxweynaha inaysan jirinin waxyaabo secret oo la qarinayo oo soo baxay oo campaignka dhibaato u geystay ma aysan jirinin marka waxaa moodaa dadka xataa markay saataagayaan oo dadka iska soo horjeeda doorashada madaxweyne musharaxiinta ma jirinin waxyaabo hadalla adag ay isku adeegsanayeen marka haddii dagaalka uusan dhici lahayn Ukraine waxaa dhici lahaa dagaalkii aadka u badnaa koronaha ayaa saameyntiisii joogi lahayd mar walba taasoo ka saameyn badneed runtii culayska iyo karkarka u lahaa koronaha ayaa aad uga weynaa haddii uusan dhici lahayn kan laakiin kaas waxaa qaboojiyey oo fursad 100% oo smooth laakiin dagaalka smoothka siiyey madaxweynaha waddankan laakiin lama dhigi karo Macron hadduusan dagaalkan dhici lahayn fursaddiisu waa khasaari lahayd mar walba oo xisbiga cunsuriyiinta ay joogaan fursaddiisa aad u weyn tahay waayahay aan u soo laabto daawadaashana meelba caalamka joogaan ee daawanaya barnaamijkeena maalmaha dunida si toos ah nagala socotiin waxaad fikirkiina iyo aragtidiina aad nagala wadaagi kartiin qaybta hoose ee shashada barnaamijka aad ka daawanaysaan waxaanu falanqaynaynaa doorashada siyaasadeed iyo weliba tan madaxweynenimo ee waddanka Faransiiska sida ogtiin wuxuu ka mid yahay wadamada hubka nuclearka haysta dunida wadamada ka tirsan ama waxba ka aasaasa ha noqoto siyaasadda reer galbeedkana kaalin hore kaga jira ay ka mid ah NATO isla markaana saameyn ballaaran ku leh midowga Yurub doorashadaas ka soko waxa u muuqda daawadaasha meelba caalamka joogaan in Xuseen marka loo fiiriyo doorashada ka socota Mareykanka markay ka dhacdo doorasho ama Ingiriiska in ay ka cod dheer yihiin doorashada Faransiiska taa ma waxa meesha ka maqan baa leedahay waxyaabihii laga filan lahaa doorasho sida fadeexadaha iyo waxyaabaha hadda aad qeexday in doorashadani u socoto si hoose si fiican iyo waxa kaloo la fiirin karaa 5 sano ugu dambeysay madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Faransiiska wuxuu lahaa assimilation oo inuu ku milmo siyaasadda caalamka mar walba wuxuu ahaa nin mar walba charismatic uu leeyahay oo qof qurux badan weey marka aragtid muuqaalkiisa siyaasaddiisa shock ma jiro oo dhinaca immigrationka dhinaca dadka kale marka madaxweynaha wuxuu ahaa runtii oo 5 sano ugu dambeysay oo madaxweynaha hayay ka shaqeeyay in cid walba oo asaga ka soo horjeeda oo u muujiyo laba tallaabo inuu gadaal u qaado kadibna hal tallaabo u soo qaado mar walba dhinaca extremeka ama dhinaca shishe uu iska ilaalin jiray mar walba wuxuu isku ilaalin jiray dhexdhexaad inuu noqdo inuu siyaasaddiisa normal gareeyo problemo waxaa jiray iyo waxyaabo waxaa jiray oo affair oo dhacay intuu 5 sano haystay laakiin mar walba wuxuu ku xalin jiray sidii qof caadi ah waxyaabaha laga xasuusto waxaa ka mid ah inuu dhihi jiray markii ay wax dhacaan haddii waxaas ay dhaceen ay rabaan inay arkaan qofkii waxaa ka dambeeyay hay soo raadiyaan aniga u joogo meesha ha yimaadaan aniga la hadlayo marka wuxuu ahaa madaxweyne dhiiran wuxuu ahaa qof sociala runtii marka laga hadlana in la xasuustaa la rabaa waa 42 jir ma aha qof weyn 38 jir uu ku qabsaday doorashada madaxweynenimada marka 43 sano jira Mareyna hadirtaan marka ma aha qof aad weyn waa qof aad u dhalinyaro qof waxa weeye ka soo shaqayn jiray Mareykanka bangiga ugu weyn Mareykanka ka soo shaqayn jiray wuxuu ahaa international relationship uu lahaa wuxuu ka shaqayn jiray xafiiskii oo Obama uu la shaqayn jiray markii hore oo wasaaraddiisa arrimaha dibadda marka qof wuxuu ahaa oo internationalka la soo dhaqmay Faransiiska dhinaca halkan ka jooga markuu galay madaxweynenimadana wuxuu keensaday dhalinyaro oo sidii mataqaanaa startup-ka dadka oo barnaamijyada yaryar ka sameeyo oo kale entrepreneur-ka oo kale ayuu u waday dawladdii kadib wuxuu isku bedelay inuu dadka waaweyn ee dadka mataqaanaa old schoolka inuu keensado old schoolkii siyaasadda marka ayaa ku hagay in dhinacan la iska ilaaliyo wuxuuna siyaasaddiisa ku soo daray maadaama uu ka yimid dhinaca socialistaha wuxuu ku soo daray dhin midig iyo bidix iyo
horey meel walba dadka ka tirsanaa ayuu siyaasaddii kusoo dardaray oo wasiirro ka dhigay oo ra'iisul wasaare ka dhigay taasaa marka waxay u fududaysay in fursado badan iyo aragtiyad badan dad leh uu soo jiito waayahay aan usoo laabto haweenayda iyaduna kasoo horjeeda oon jecelahay qaybaha dhexe inta dambe in wax kaa weydiiyo Emmanuel Macron marka la fiiriyo wuxuu wajahayaa culays ka imaanaya siyaasadda dhanka midig kooxaha aan ku tilmaamayno inay u janjeeraan siyaasadooda ka dhanka dadka soo galootiga ama lagu tilmaami karo siyaasadda cunsuriya aad iminka shaashadda ka aragtid Marine Le Pen waxyaabaha lagu haysto waxaa ka mid ah arrimaha xagga diinta gabadhan Marine Le Pen waxay leedahay taariikh cunsurinimo aabaheed wuxuu ahaa cunsuri oo waxaa la dhihi jiray Le Pen marka John Marie Le Pen la yidhaha aabaheed marka wuxuu ahaa qof aad u cunsuri ah taariikhdiisana waxay kasoo bilaabanaysaa cunsurinimada iyo la dagaalanka qaxooti naceebka ilaa iyo madaxweynihii ugu horreeyey ee Charles de Gaulle ee waddanka 60kii qabsaday marka waa dad halkaasay ka timid oo gabadhii iyada waa ugu weyneed oo qabsata gabadhii labaad weeye oo qabsata waxayna haysataa xisbigan ilaa iyo 2002 markii laga guuleystay aabaheed kadib dhinaca islaam naceebka way ku caan baxday sababtoo ah electoraalka dadka wax dooranaya waa laba qaybood oo uu haystay marka laga tago 5 sano hadda la soo dhaafay bidix iyo waxay kala yihiin midigna waxa haystay dhinaca Sarkozy iyo Chirac dhinaca kale bidixna waxa haystay madaxweynihii hore ee waddankan ee joogi jiray haystay socialistaha oo ka tirsanaa ninka la yiraahdo François Hollande ee uu madaxweyne u ahaa Macron hadeerta intuusan soo sharaxin marka naceebka ayadaa lagu yaqaanay laakiin waxay samaysay wax la yiraahdo normalizing oo waxay normal garaysay naceebka qaxootiga waxay normal garaysay naceebka islaamka marka sababta keentay in Eric Zemmour oo ku soo biiray doorashadan si surprise oo kor u kaco skorkiisa waxa keenaya waxay tahay naceebka ayaa aad u badnaa marka mar walba oo la yiraahdo Faransiis hadaan nahay dhulkeena laga haystaa waxa soo baxay wax adduunka ka jira cunsurnimada meeshiina ka jira oo ah in la tirtiri doono isirka dadka cadaanka oo imaan doonaan dad kale oo madow ama carab ama islaam ay noqon doonaan hadallada laga hayo waxa kamid ah hadii 50 sano ama 30 sano soo socota Faransiisku waxay noqon doontaa Islamic Republic marka ereyadaas oo dhan marka loo fiiriyo waxay ku jirtaa naceeb qofna surprise ma aha marka la fiiriyo aabaheed iyo noloshii ay ka timid iyo siday ku soo heed inay tahay qof cunsuriya oo aad u nacab dadka islaamka waan gartay si walbaba ha loo eego siyaasadda ha lagu kala aragti duwanaado marka loo fiiriyo arrintan la xiriirta ku tiirsanaanta shidaalka iyo weliba arrimahan kaga yimaada waddanka ruushka siyaasadda qayb sidee ayay ka ahayd oo weliba wadamo badan oo dhowr Yurub ay iminka jareen xiriirkii ay la lahaayeen ganacsi waddanka ruushka kadib dagaalka ka dhacay waddanka Ukraine ololahan 12 musharax ay tartameen kaalin sidee ayaa ololaha ay ka ahayd in ku tiirsanaanshaha lagu tiirsan waddanka ruushka qaasatan xagga shidaalka ay Faransiisku noqdaan kuwa mustaqbalka fog ama ka dhowba ka maarma marka la yiraahdo Yurub wadamada ugu badan ee shidaalka soo qaata ruushka waa Jarmalka iyo wadamada kale ee qaybta estiga ee Faransiiska Talyaaniga Spain oo kale marka in la yiraahdo waa laga maarmayaa gaaska Ukraine ee gaaska ruushka hadii la yiraahdo waa laga maarmayaa ma jiro ama xataa wax u soo dhow ama xataa 20 sano ee soo socota xataa hadii ay yiraahdaan 20 sano kadib aan ka baxaynaa xataa ma haystaan wax u bedeli kara gaaska ruushka waxa kaliya fursad haystaan waa in mechanismkii oo gaas looga soo qaadi lahaa wadamo kale oo carabta ah ama waddanka ugu soo dhawaa Mareykanka in laga keeno oo tubooyin la soo geliyo oo badda la soo marsiyo oo intaasoo sano waa aragtay qarash iyo hawl qaadanaysa marka ma jirto mar walba bedel u bedeli kara in ay ka timaado dhinacaas ruushka gaas kale oo adduunyada kale uga yimaado ma jiro haddii marka uu waxyaabaha uu dagaalka ruushkana uu guusha ugu waxaysanayo Putin waxa kamid ah inuu kula gorgortamo mar walba haddii saan la yeeli waayo gaaskan sameeyna haddii saan la yeeli waayo hubka nuclear-ka isticmaala sababtoo labada option kaliya ee uu isticmaali karo Putin waxa weeye labadaas hubka nuclear-ka waxa uga khatarsan inuu joojiyo sababtoo hadda uu lacagtiisii kor ugu qaaday oo uu ogolaaday in suuqa lacagtiisa loogu iibsado gaaska waxay tahay sababtaas saameynta marka ay ku leedahay halkan waxay ahayd dhinaca dimuqraadiga dadka markay ka eegaan waxay leeyihiin Putin iyo anti Putin waa inaan kala dooranaa yaa marka Putin taageersan Macron yaa ka soo horjeeda Le Pen Zemmour
Mélenchon kulli waxay taageersan yihiin ama si hoose ay u ogol yihiin xataa waxay diideen inay cambaareeyaan xasuuqii maalin hore ka dhacay magaalada oo markii dadkii lagu dilay oo gacmaha laga xirxiray Macron baa kasoo horjeeda Macron baa kasoo horjeeda siyaasadda dimuqraadiga asoo kasoo horjeeda haddana wuxuu isku arkaa maadaama uu yahay laba koofiyadna wuu wataa oo wuxuu wataa koofiyaddii madaxweynihii Yurubna waa yahay oo sanadkan asaga ah madaxweynihii Faransiiskana waa yahay madaxweyne musharax madaxweynena waa yahay marka fursaddu haysto waxa weeye habeen walba iyo maalin walba uu la hadlaa Putin asagoo ka socda Yurub asagoo ka socda mataqaanaa Jarmalka iyo wadamada kale asagoo ka socda ayuu la hadlaa Putin oo dhexdhexaad uu rabaa inuu noqdo laakiin siyaasadda noocaas miyay dadka dooranayaan oo dhexdhexaadnimada mase waxay dooranayaan all the way qof aadaya dhinaca Putin oo ka soo horjeesanaya civilizationka dadka Yurubiyaanka ay rabaan oo aan dimuqraadiyadda wax ka soo horjeesanaya miyay rabaan sababtoo ah hal European Unionka qof ka tirsan oo garab ma haysto ilaa hadda Putin marka waxay ku noqonayaan dabar jab haddii midowga Yurub ay heli lahaayeen madaxweyne Faransiisa oo naagtan cunsuriyada haddii la doorta ama nin kale haddii la dooran lahaa meeshaas wuxuu ka heli lahaa Putin awood weyn marka kaalin weyn ayay ka ciyaartay doorashadan in uu asagana uu isticmaalay madaxweynaha Faransiiska kaarkaas oo mar walba wuxuu soo saarayay inuu joojiyo ololihii doorashada uu asoo telefoon ku hadlaaya asoo dhafarsan asoo maalin walba la hadlaaya asoo Ukraine ciidan u diraya asoo hub u diraya ma xuduudda u dirayay si ay dadka u caawiyaan waxaa la sameynaya fiidiyoyo aad u badan oo campaign oo dhinacaas lagu taageerayna way jireen waan garta aan dib ugu soo laabto arrin markaa u muudo dadka in ay dagaalka Ukraine darteed ku loobeen laakiin qayb ka ahayd ololaha siyaasadda qaar ka mid ah musharaxiinta ama inta ugu badanba caabuqii COVID-19 saameyn ballaaran buu ku yeeshay dunida haba ugu horreyso meelo kala gedisan oo caalamka qaasatan qaaradda Yurub markay timaado arrimaha la xiriira xagga doorashada kaalin sidee ah ayay culays ugu lahayd dadka dooranaya ama se ololaha dadka wada iyagoo xisbiyada ka tirsan markay timaado wixii laga baran karay caabuqa COVID-19 sidaan kuu sheegay COVID-19 wuxuu ahaa dagaal aad saameyn u lahaa oo ceebo badan oo Faransiiska soo saaray systemka xaggiisa hadday tahay baahida la qabo hadday tahay isbitaalada sariiraha oo aad u dhammaaday maskiga oo afka lagu xirto oo aanan la haynin mar bilowgii koronaha oo hadallo iska soo horjeeda contradiction oo laga sameeyo la yidhi corona dhib male dhib uu leeyahay maski ma la rabo waa la qaadanayaa iyo shuruudihii koronaha oo kale in maskiga la xirto in mataqaanaa dadka guryaha ay joogaan in mataqaanaa dadkii mataqaanaa waxyaabo badan oo noloshii laga hor istaagay koronihii uu bedelay in loo eedeynayay waxyaabahaas restrictionkaas inuu samaynayo mar walba madaxweynahan ula hala joog marka surprise waxay noqotay 2 bil ka hor aan la qaaday wax allaali wixii shuruud ahaa ee corona ku saabsanaa waa la qaaday si dadka loo ilowsiiyo qof walba marka oo dukaan gali jiray qof walba oo adeeg sameey jiray qof walba oo diyaarad raaci jiray saameyn walba marka oo corona ku ahaa waa la ilowsiiyay dadkii waxayna noqotay inay normal u noqdaan ay yiraahdaan wixii waa dhamaadeen waxaasna si credit oo qaatay uu leeyahay aniga jooji asaga shala sameeyay shuruudii laakiin wuxuu yiri aniga jooji shuruudihii soo marka qof walba waa free gaas marka dad badan waxa jira ololaha ku soo galay waa xoreynayna wadanka shuruudda ma la qaadanayo iskuulka ilmaha way aadayaan mask lama xiranayo freegii oo jooy asaga qaatay creditku yiri ana free ka dhigo maxaa loo socdaa marka asoo doorashada qaybtaas ay aad u sareysa runtii maxamed oo aad loo hadalhayo in oo isku jijiidi doono ayaa waxa yimid dagaalka Ukraine taas marka saaxadii gabi ahaanba waxay ka saartay wax alla wixii la isku haystay ee corona ahaa qofka hadda weydiiso corona waxa ka dhigaya wax sanado badan ka hor inay dhaceen oo kale qof hadda hadalhayo ma jiro way xuseen waxaan u sii doonaa qaybihii dambe waxaan jecelahay qayb qaar ka mid ah musharaxiinta waxaan filayaa haddaan qaldaneen aan arkay aan jeclaan lahaa inaad dabadaashan la wadaagtid inay qaarkood ololaha uu ka mid ahaa inay ka baxayaan haddiiba ku guulaystaan inay noqdaan madaxweynaha waddanka Faransiiska inay ka baxayaan ka mid ahaanshaha NATO arrintaas waa waxyaabaha kaararka u isticmaalay ninka la yidhaha Macron wuxuu isticmaalay sanadkan maadaama uu yahay madaxweynaha Yurub wuxuu sameeyey Lithuania xarunta ugu weyn ee dhinaca ka soo horjeeda xuduudda Ruushka ayuu wuxuu geeyay ciidamadii ugu badnaa ee Yurub dhinacaas jooga wuxuu ka dhigay Faransiis asagoo raba inuu isticmaalo kaarka NATO dad marka waxaa jira oo siyaasiyiinta musharaxiinta maadaama wax walba la iska soo horjeedo waxay yiraahdeen NATO waa inay ku ekaataa siyaasad laakiin waa inaysan ciidan isticmaalin hadalkii wuxuu u isticmaalay marka wuxuu yiri dad waxaa jira NATO aan rabinin oo raba in ay ogolaadaan inay u dhiibaan Yurub Ruushka NATO sababta loo sameeyay waxay tahay in la iskaga difaaco Ruushka ayadoo Mareykanka taageeray
marka kaarkaas dad badan oo saas yiri oo waxa jira ka laabtay oo marka toos loo weydiiyo hadallada waxa weeye oo su'aalaha adag waxaa ka mid ah Europe inay ka baxaan oo kale ereyadaas waa dhumeen hadda qof dhihi kara male sida Brexit u dhacday qof walba ceeb ayuu la kulmayaa sababtoo ah halka marka laga hadlayo Brexit lagama hadlo sidii idinkoo kale ee Ingiriiska looga hadlayo in oo mataqaanaa wax oo xoreyntii waddanka dib u soo halkan waxaa laga hadlaa inay tahay meel goodoona Brexit haddii la geliyo Faransiiska in la goodoominayo in rootiga la qaaliyeynayo sababtoo rootiga wuxuu yahay calaamad weyn oo Faransiiska laga isticmaalo marka cunto qotor daruuriga laga hadlayo marka arrintaas oo NATO waxay ahayd arrin oo tabin loo dhigay ahayd ay ku dhaceen siyaasiyiinta laakiin wax suurtagal ah ma aan credit fiicanna uu ku helay ninka la yiraahdo Macron waaya hadda qaybta labaad ee doorashada waxaa wareegii koowaad ku soo baxay sidaad sheegtay madaxweynaha iminka talada haya Emmanuel Macron iyo haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen oo doorashadii horena iyagu iskugu soo haray waxaad sheegtay in ay sababta ay ku lumisay codadka ay ahayd doodii telefishinka waxyaabaha doodaas laga xasuusan kara ay codka ku lumisay doorashadii hore maxaa ka mid ah sida systemka uu dhigayo Faransiiska marka la gaaro maalinta oo kale oo axada oo wareegga koowaad la gaaro waxaa dhici doona labada qof ee ugu codka badan isku soo bixi doona kadibna waxaa loo gudbi doonaa axada dambe in la kala doorto wareegga labaad labada qofood ayaa la kala dooran doonaa ka hor inta waxaa la samayn doonaa maalinka khamiista ama maalinka arbacada ayaa waxaa la samayn doonaa dood telefishinka qaranka laga daawan doono oo dad ku dhow ay daawan doonaan 30 milyan ilaa 35 milyan dadkaasa marka waxay dooranayaan dood oo programa hadda lama kala dooranaynin qofka yaa program fiican yaa wax qabanaya yaa oo ceeb leh hadda waxaa la kala dooranaya waxay tahay yaa badbaadinaya Faransiiska hadda inkastoo doodda sanadkii hore 2017 ay isku soo hareen labadooda oo dooddaas ay dhaawac ugu weyn u geystay waxay ahayd waxyaabihii ay isku qabsadeen waxay ka hadlaysay maadaama uu ahaa madaxweynaha markaas musharax madaxweyne uu ahaa uusan wasiir maaliyadeedna uu ahaa ayay waxay la soo baxday waxyaabo asaga oo aan joogin ayay la soo baxday oo ay weydiisay tiri feelkaas adigaa hayay sheekadaas adigaa ogaa marka asagana nin aad u diyaarsan u ahaa feelashii iyo sheekadii ayuu u qaatay asagoo runtii aad ugu bahdilay doodaas muddo 30 daqiiqo ahna si walba ugu isticmaalay weliba ayada doodda markay dhamaatay waxay sheegtay in ay dad kaniini siiyeen ama ay wax kala siiyeen aysan normal ahayn markii ay isdaawatana ay aad uga yaqiiqsootay sida loo bahdilay ayna u ogolaatay doodaas inay isticmaashay hadda dooddiyaa la qabanayaa xiisad aad u weyn bay leedahay runtii waxaa la filayaa inay isi soo diyaariso waxaa la filayaa inay iska daydo mar labaad inay isxajiso waxaa la eegi doonaa siday isku su'aalaha ugu baxdo sababtoo ninkan waa nin aad telefishinka iyo comedian ah sababtoo naagtiisa waa professor oo theater way so marka wuxuu haystaa saaxiibo badan oo tiyaatarada iyo qaabta doodaha iyo waxaas wuuna isdiyaariyaa oo waxaa lagu yaqaanaa ninkan waxay tahay markuu dooda ka qayb galayo 3 habeen qol buu galaa ma soo baxo wuxuu la kulmaa dad badan oo fikradaha iyo hadallada ayada ay qabto oo kale ah oo tijaabo ah oo sidii TV-gii oo kale ah asagoo diyaarsan oo 10 qof ilaa 15 qof la soo dooday ayuu u yimaadaa ayada oo kasii xag jira oo programkii wata laakiin comedian ah oo la soo diyaariyay programka noocaas markuu helo ayuu iskugu yimaadaa maalinkaas waana aad u xiiso badan tahay doodaas waa la sugi doonaa khamiistiina dhacda laga yaabo waa gartay wareegga koowaad labadooda ku soo baxay wareegga labaad waxaa la qaban doonaa 24 bisha dooda markay galaan kadib 24 bisha musharaxiinta iminka haray tartamayaasha iminka haray codadkooda xagee u kala badanayaan baa isleedahay sababta haddaan daawadaasha mar kale tuso adigana aad nala wadaagta qaybtii hore waxaad noo sheegtay in uu helay Emmanuel Macron 28 dhibic iyo xoogaa 28 boqolkiiba iyo ka badan Marine Le Pen 23 iyo xoogaa laakiin inta ka hooseysa laga soo bilaabo musharaxa ku xigo 20 boqolkiiba iyo googo helay iyo inta ka hooseysa marka labadoodan ay iskugu soo haraan codadkaas iyo doorashada codadka helay musharaxiinta haray xagee u kala badan yihiin qaarkood waxaynu maqlaynaa inay ku dhawaaqeen inay jecel yihiin codadkooda ha yaraadaan ama ha badnaadaane inay musharax gaar ah siinayaan inta soo hartay 12 weeye marka laga reebo hal qof oo ah Eric Zemmour ayaa ogolaaday in asaga isku xisbi yihiin waxaa xusid mudan meeshan gabar la dhalatay gabadha hadda madaxweynaha ah gabadhay dhashay ayaa waxay u tahay qaybta campaignka Eric Zemmour so marka waxay ka soo baxday habaryarteed oo kale ayay ka soo baxday waxayna u gashay dhinaca kale oo ka soo horjeeda marka qaybtaas
oo ayaa u ogolaaday kaliya in loo codeeyo Marine Le Pen laakiin marka la eego 10 kale waxay doorteen in loo codeeyo ama ay sheegeen kulligood in loo codeyn doono Macron waddankaana sharciga ka jiro oo waxa la yiraahdo anti republican oo ah in republic ahaan lisku haysto jamhuuriyad ahaan lisku mideysto si looga hortago dadka cadawga ama cunsuriyiinta ay u yaqaanaan si aysan u qabsanin xukunka waddankan mana laga yaabo inay qabsadaan intii taariikhda dhacday Faransiiska weligeed ma qabsanin shantii jamhuuriyadeed ee soo baxday marka ma u maleynayo inay dhici doonto in ay qabsato dadkana boqolkiiba 95 waxay u doorteen inay dhahaan laga hortago waxaa marka jira laba doorasho midna waa midda oo absentation-ka oo ah dadka inaysan codeynin oo taas dhibaato weyn ku ah taas haday dhacdana waxa soo bixi doona madaxweynaha waddankan midda labaad oo ah dadka codeynaayo ama dadka ka soo horjeeda siyaasadda 12 kale oo codadka helay ugu badan ayaa waxay u doorteen in Macron loo codeeyo marka taasaa lid ku ah Le Pen inay qabsato mar labaadka marka guusha ugu weyn ee Macron uu heli doono waa saas laakiin waxay noqon doonaan score aad iskugu dhow maadaama dadka absentation-ka aad u yari u badan doonaan inay ka maqnaadaan dadka ka qayb galayaan ay aad u yaraan doonaan taasaa marka waxay keenaysaa marka la qabto mar labaadka doorasho cusub iyo campaign cusub in 2 isbuuc la galo 2 isbuuc kadibna markaa la soo dhajiyo in la qabto ugu dambeyntii Soomaalida ku nool gudaha waddanka Faransiiska qaarkood xaq u leh inay codeeyaan ama sharcigii haysta ama si isdiiwaan geliyay ma isleedahay codkoodu uu kala qaybsamaya mise waxa la qiyaasi karaa meesha badankoodu socda Soomaalida laba u kala qaadina Soomaalida oo Djiboutiyaanka oo reer Djiboutiga iyo Soomaalida kale oo Soomaaliyada ka yimid Somaliland Puntland iyo Koonfur oo dhan ka yimid marka la fiiriyo tiradooda aad uma badna marka la isku daro hadii macal reer Djiboutiga iyo Soomaalida kale oo halkan joogta oo dhan la isku daro waxa sharciga dhalashada haysta ee jooga waxa muhiim ah dadka joog badanaa dadka ma joogaan sida lagu yaqaan Yurub oo dhan waa xararan wadamada Ingiriiska meelahaas ay aadaan laakiin dadka jooga 200 qof ma dham marka 200 qof haday u bataan ayagana kulligood waa socialisti codka siinayaan ama madaxweynaha waddankan qof ma 200 qof tira ahaan tirada 200 qof inta dhalashada haysata ee codeyn karta ee Faransiiska joogta 200 qof ma dham aad u yartay aad waxba tira ma hatta ma dad active oo kulli codeyn kara dad badan waxa jira aqaano oo aanan codeynin oo dhalasho haysta oo u malay wali inaysan sharci haysan ama aysan xaq u lahayn inay codeeyaan waqtigeedii aan la gaarin waan gartay marka way adag tahay 200 iyo 2000 wax u dhow ma ilaa tira noocaas way jiraan dad ilaa 2000 oo sharciga haysta laakiin way guuraan badanaa ma joogaan wadamo badan ay tagaan ay ka codeeyaan dad badan oo aqaan oo jooga Ingiriiska oo sharciga halkan ka qaatay ama Canada iyo meelahaas jooga oo waxa jira codeeya laakiin kulligood inta aqaano adeertaan waxay u codeeyaan socialistaha iyo madaxweynaha waddanka ma jiro dad cunsuriyiin oo codeynaya Soomaalida waa iska taqaana oo dad iska anti ah laga yaabo inay jiraan ama qof aan siyaasadda la soconin sharci haysto kaliya ma codeyn kara si aan marka wax u gubo oo kale laakiin codkiisas waa saas qarxinaya laakiin waxa uu tara waayahay waxaynu soo gaarnay gabagabadii goraanadkii qaybta labaad ee toddobaadka soo socdana Xuseen oo martii noogu yahay hadii beedna wareegii koowaad ayaa maanta la soo gabagabeeyay doorashada waddanka Faransiiska oo ay wareegga labaad u soo baxeen madaxweyne Emmanuel Macron iyo haweeneyda Marine Le Pen oo doorashadii horeba iyagu iskugu soo baxay Xuseen oo jooga magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiskana inoo falanqeynayay inoona sharaxaya xaaladdu hadba siday tahay toddobaadka soo socda iyo toddobaadyada kale inta doorashadu ay dhamaanaysana Xuseen oo nagala qayb qaadan doono barnaamijkan hore noogala qayb qaatay falanqeynta qaasatan doorashada waddanka Faransiiskana aynu toddobaadada soo socota aynu ku soo qaadan doono Xuseen baada barnaamijka baalmaha dunida inuu kaaga mahad celinayna waqtigaaga iyo aqoontaada iyo waliba sharaxaadda guud aad naga siisay siyaasadda waddanka Faransiiska iyo xaaladdu siday tahay iyo doorashada intaba waa mahadsantahay Maxamed waa Soomaalida waa salaamaya habeen wanaagsan Ramadaan kariim Ramadaan wanaagsan meel baa dunida ka joogtiin aad Xuseen waxaynu ku dhiirigelinaa Soomaalida hal qof ha ahaadaan waddanka joogaan inay ka qayb qaataan doorashadiisa ay dadkii dhex galaan ay fikradahooda ogaadaan oo aan loo go'aamin go'aamada iyaga saameynta tooska ku leh oo aysan noqonin dad jooga haddana maqanayaashii jooga inaysan noqonin marka waan rajaynayaa Faransiiska tirada aadka u yar aad noo sheegtay in sanadaha soo socda ay kasii bataan Xuseen Barrio falanqeeya aad iyo aad arrimaha siyaasadda iyo amniga uga falanqeeya jooga magaalada Paris aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa barnaamijka maalmaha dunida la socodsiinayay anigoo Maxamed Saciid Saxaafi guud ahaan bahda barnaamijka oo isku duuban meel baad caalamka joogtaan waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo